marka alxamdulilah sokortaadi waa fiican tahay haddana igu dheheen marka aad iyo aad baad mataqaana doctor u mahadsan tahay intaasna waan kugu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu doctor jaamac waa aniga ku soo noqday sanadkii hore berigii dhakhtarku uu daawadiiga joojin jiray waxay ahayd february 2024kii bishii labaad ayay ahayd markii dhakhtarku uu daawadiiga joojiyey berigii waxay igu dhaheen waxaan idhi bal mar kale testa iga qaado oo wixii inuu saan ku tegay in kale aan ogaado 3 bilood kadib waxay dhahen 3 bilood kaama qaadeen 6 bilood kadib baan sheekan kugu samaynaynaa marka waa yahay baan idhi 6dii bilood waxba iimayn soo dirin aniguna waxba lama hadlin sanad markaan hadda joogay iyo 2 bilood baan u malaynayaa adigu bishan maanta 20ka ah bishii abriil 30keedii ayay mataqaanaa ay ballan ii sameeyeen checkin sokortii bal xaaladeedii marka wiig kadib bay ii yeedheen waxay dhaheen alxamdulilah sokortaadii way fiican tahay waa sidii mataqaanaa sanad daawaduna dee waa kii laiga joojiyey waad ogeyd marka alxamdulilah checkin bay igu sameeyeen oo sanad iyo waxaa ka soo wareegtay 2 bilood adigu 14 bilood kadib bay iyay igu sameeyeen checkin bal sokortii sidii inay tahay iyo in kale marka alxamdulilah sokortaadi waa fiican tahay haddana igu dheheen marka aad iyo aad baad mataqaana doctor u mahadsan tahay intaasna waan kugu siyaadinayaa alxamdulilah sanad iyo 2 bilood adigu 14 bilood kadib bay checkin labaad igu sameeyeen waana fiicnaaday haddana oo waan baasay marka alxamdulilah adiga aad baan kuu rajaynayaa waan iska fiicannahay koleyba markaad soo noqotaan ismaqli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana kuu soo duceynaya ilaahay mataqaanaa inuu adigana khayr kuugu daro iyo ajar iyo xasanaad kuugu daro mataqaanaa waxa waye haddaad ruux caawiso waxay lamid tahay adoo dadka adduunka joogo dhan caawisay bay lamid tahay marka ilaahay khayr ha kuugu daro abti waa kuugu duceynayaa ilaahayna ha kuu barakeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu